Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal kusoo dhawaada. Halkan waa Joogdhowr Media oo alaaba idiin soo gudbisa waxyaabaha cusub, wararka 24 saacadood ee soo gudbay. Daawadayaasha waxaan ka codsanayaa in like iyo share-ta iyo follow-da ay ku qabtaan barnaamijka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ansixiyay xeerka wax ka beddelka oo ay ku ansixiyeen in lagu soo dari doono qodobka afraad iyo qodobka 15aad oo lagu ansixinayo maamul goboleedada sida maamul goboleedka SC Khaatumo iyo maamul goboleedka maqaamka Muqdisho. Sidoo kale waxa ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka oo hore ay ansixiyeen oo laga dhigi doono wadanka doorasho hal qof iyo hal cod ah, taasoo ay maamul goboleedyadu ay ka biyadiideen sida maamul goboleedka loo yaqaano Jubbaland Axmed Madoobe. waxaa kaloo la arkayay lafti garan isaguna qabsanaya doorashadii ahayd midda baarlamaantariga ahayd ee doorashada dadban loo yaqaanay, halka dadka qaar ay leeyihiin wadanka kama qabsami karto doorashooyinka qof iyo cod, taasoo u baahan waqti dheeraad ah iyo wadanka oo nabad noqda. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha baryahan dambe laysku maandhaafsiya ayay ka mid ahayd arrinka doorashooyinka oo dadka qaar basi ay u arkayaan, halka uu ka arkay Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay ka arkeen dana gaara oo u muuqday inay doorashada qof iyo cod ay ka dhexelayaan, taasoo dadka qaar ay leeyihiin Xasan Sheekh wuxuu iska dhaadhiciyay in uu sii joogi doono muddo badan oo inta laga gaarayaa doorashada hal qof iyo hal cod ah, halka ay muddo xileedkiisina uga hadhay sanadii 6 bilood. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku falaqayn doonaa barnaamijka qodobka iyo qodob kale. waxaa kaloo aan arkayay wasiirka qoyska Bashiir Goobe oo ay dumar ku dhegan yihiin, taasoo ay leeyihiin wasiir waxaad noo raadinaysaa qoondadii aanu ka lahayn dumarka, halka adiguna aad naga qaaday kursigii keliyaate ee aanu ku lahayn dowladda, bal sidee bay isu qabanayaan? inan baa waxay weydiisay wasiirka arrinkaa, bal waxaan tusi doonaa si uga jawaabay iyo falcelintii ka soo baxday iyadoo goob fagaara ah ku qabatay. dhanka kale waxaa la sheegayaa doorashooyinka Somaliland in ayaantan dambe la saadaalinayay natiijooyinka hordhac ee soo baxayna ay u badnaayeen xisbiga wadani ee uu hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro, halka kaalinta koowaad ee xisbigaasi ku jiro lana saadaalinayo kaalinta labaad inuu soo galay xisbul xaakimka waa Kulmiye, waana xisbigii uu ku tartamayay Muuse Biixi Cabdi. dhanka kale waxaa la arkayay xisbigii uu lahaa ninka loo yaqaano Faysal Cali Waraabe oo isaguna saaxadaba ka baxay oo waayay xisbinimadii iyo ururnimadii. waase la saadaalinaya dhanka qolada ururada u tartamaysay ee ahayd 7 urur ayaa waxaa la saadaalinayaa in codadka ugu faraha badan ee ugu aqlabiyada badan uu haysto ururka loo yaqaano kaasoo wato siyaasi maxamuud xaashi, kaasoo ah nin dadka qaar ay ku sheegaan nin tab iyo xeelad badan, kaasoo yaqaana sistamka loola dhaqmo. kuwii horena weydeen in ay isku dhaceen Muuse Biixi isku maandhaafeen kadib markii uu ka tirsanaa xisbiga Kulmiye, taasoo halhays noqotay mahmaahdii uu soo qaatay ee uu lahaa Muusow waxa weeyaan waxaad noqotay nin tegayna tabin mid joogana waxba weydiinin oo tunka taagaye, taladaadu markay ku urto waxba hayga siinin. kadibna maxamuud xaashi wuxuu noqday nin dhexda u xidhay, waxaanu noqday ninka la soo baxay ururka waxaana u rajaynayaa in sida la sheegaya hadday dhab tahay maxamuud xaashi uu heli doono hadda xisbi uu isagu iska leeyahay, bal anagana wixii ka soo baxa waxa weeye waa saadasha hordhaca. maxaa yeelay waxa dhacay qof walba muraaqibiin buu leeyahay, muraaqibiintaasina kadib waxa ay isu geeyeen codadkii ay ka heleen goobaha. codadka ugu badan ee xisbiga wadani wuxuu ka helay gobolka Awdal, taasoo la sheegay codkii ugu faraha badnaa inuu ka helay. dhanka kale waxaa la sheegayaa codkii ugu faraha badnaa kale inuu ka helay gobolka Maroodi Jeex, halka la sheegayo magaalada Burcana inuu ka helay codadkii ugu faraha badnaa. sidoo kale wuxuu ka helay codadka ugu faraha badan halka uu kasoo jeedo Muuse Biixi Cabdi oo ah xaafadiisa, waana meesha loo yaqaano Gabiili, halkaasoo lagaba filahayn inuu cod buurano saas kala iman doono. adigu si kastaba ha noqotee waxa weeyaan oo fallaadhi cirka loo garan walow filo, bal anagana wixii ka soo baxa halkaana waan eegi doonaa. kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka.
daawadayaasha waxaan u sheegayaa inay ku qabtaan barnaamijka laygta iyo sheerta aanay sii gudbiyaan. waa mahadsantihiin. bal aan u gudubna Bashiir Goobe oo ay la hadashay iyo sidii uga filceliyey aan eegno. kusoo dhawaada waana kan hadalkiisa. waxaad doodaysaa qoondada haweenka oo boqolkiiba 30 inay haweenku helaan kursi keliya ee wasiir ah ee dowladda ku lahaayeen haweenkan adiga suurtagal ma tahay in haweenka qoondada ay raadinayaan ay helaan kow horta kursi haweenku ma fadhiyo kursi qoyska ku fadhiya abaana xaga dhig marka anuu ma bedela anaa bedela wax ma bedelo ukaad arrimaha wax bedela marka koridii iyo kobacii dalka iyo dadka iyo dowladnimada ayaa gaartay inaynu qayb bulshada ka mid ah ka baxno bulshadii oo dhan aabbo u samayno oo maamul u samayno marka wasaaraddan waa wasaaradda qoyska aday wasiir kuu tahay wiil baa tahay aday kuu tahay gabadh baa tahay hooyaday u tahay qoyskay u tahay odayga aabbahaabay u tahay waa qoyskeenna oo ka kooban wiilkaagan gabadhaadan wiilashan xildhibaanada iyo wasaaradaha gadaashii tagan iyo anigu odagoodii ah waa ka gudbaynaa waxaas kaasi waxaa wasiirka haweenka Bashiir Goobe oo la hadlayay goob fagaara inaan kadib markii ay ku tiri mudane wasiir waxaad naga qaaday kursigan xaq u lahayn adna waxaad leedahay qoondada dumarka hala meel mariyo seebay isu qabanaysaa baris qabasi marka taasoo isagu kaga jawaabayaan waad iga dhageysateen waxba ku celin maayo wixii kursigan ku fadhiya kii haweenka waa kii odayga wuri qoyskan odayba ugu weyn waxaana wasaaradda qoyska wuri wala nagna inoo socotay in kale taa halkaas aan kaga gudbaynaa. sidoo kale xildhibaan maxamed abiib ayaa waxaa ku tiirtiiqsaday wareysi laga qaaday oo ku sheegay uu leeyahay mar walba waxa waajib ah in xisbiga wadani uu helo doorashada taasoo uu sababta uu yidhina ay tahay waxa uu gelayaa waddanku qalalaase waxaynu ku jirnaa reer hebel iyo reer hebel taasina waxa weeye midda keliya tay suurta gelin karta in maanta Somaliland ay badbaado oo waxa weeyaan reernimadii weli kamaynaan korin marka anigu walba maalinta adeerkii loo dhiibo aniga adeerkii loo dhiibo marka aan reernimadii aanay suurta gelayn ayaa waxa loo gudbayaa barnaamijka kale ah qof iyo kartidii wareysi dheer uu bixiyey ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladaha dalka iyo inay mar walba waajib ahayd inuu helo Cabdiraxmaan Ciro waxaanu aaminsan yahay inuu yahay Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha keliyaata ee dhaarta keliyaata u harsan tahay si kastaba ha noqotee waxa la arkayay isaguna buuni oo xisbigii uu ka tirsanaayo kulmiye aad u hiifaya mana garan karo sababtu waxay tahay warka xigeentan isugu iman doona daawadayaal waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idinkoona nabada iyo anigoo nabada fi amaanillah.